gurigan dhammaystiran ayaa waxaa maanta si rasmi loogu wareejiyay Allah u naxariistee mid ka mid ah agoontii ka hadhay Abwaan Axmed Siciid Diiriye Afguriye oo ka mid ahaa abwaanada ugu caansan guud ahaanba dhulka ay Soomaalidu degto waxaana dhismaha gurigani door weyn ka qaatay ururka Adal Charity iyo sidoo kale haween iyo rag isugu jira qurbo joog iyo qolqol joog waxaana maanta si rasmi ah furihii gurigaasi loogu wareejiyay mid ka mid ah xaasaskii Abwaan Afguriye munaasabadani lagu wareejinayo gurigani ayaa waxa goob joog ahaa abwaano siyaasiyiin fanaaniin qurbo joog qolqol joog waxaana ugu horeyn halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay xubno ka mid ah mas'uuliyiinta ururka Adal Charity qurbo joog qolqol joog abwaano fanaaniin kuwaas oo u mahad celiyay cid kasta oo door ka qaadatay dhismaha gurigani waa maalin farxadeed dadaal soo socda dhamaaday walaalo muxsiniinta ahaa dareenkiyo damiirku kiciyay markii hore isku waafaqay in walaalkood oo marxuum ah maanta abaankii qiimaha iyo qaayaha agteena ku lahaa walaalkeen Axmed Siciid Afguriye maanta mowt ah oo inaga hooseeya in ubadkiisa adduunyada korkeeda ay ku daryeelaan intii taalkooda iyo karaankooda Allahnu mahad celinayna waxaanu mahad celinaa qurbo jooga iyo dadka qolqol jooga iyo inteedii jaabadahooga ku dartay ee dadaalka gelisay Ilaahay miisaanka xasanaadka ku wada daro dhamaanteedba isna u naxariisto biidillah marka hore halkan waxaan uga mahadnaqayaa dadka walaalaha muxsiniinta ah ee guriga u soo dhisay Abwaan Afguriye insha Allah soo kale waxaan u mahad celinayaa ururka Adal Charity oo isagu ku deeqay jagooyinka labada abwaanba guriyaha loo dhisay dadka walaalaha Soomaalida ay meel walba jooga caalamka gudaha iyo dalka dibadiisaba soo caawiyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin maanta farxad bay noo tahay shalay halka waxaanu joognay meeshaas soo maran oonu rajo qabnay قعنا وحبل لقوا مهين الحمد لله رب العالمين ومضى مسلم كأ ملك استيشوكتو دلين يرى هوين ددوا وين جناحسته عيد والبوي كقيب كش هو بدنادان حبلها محسنين تا أدل هو بدنادان وحبلا إلهي خير سيء ما هجورجن كليه كلا دسي وجورجي لبعض أبوان لوردسو الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ولو الناس عطايا وحنولانا هبلا نجا عاجسنا قبله الناس شرفت له يويلش الناس شرفت له دل يدبده وحن إذا نحن كلا جرن ما يدنا وحن إذا لنا نولاد إلهي نول خير قبل تكون نولادا فنكي بعد نوليسين ومدي سوماليات بواحد بلاودين داريق وناكسن أو إلا سحصة وأنا بدي كم هاد علينا تاني waxay ahayd hawl qaranka u taala ama dawladda qaban lahayd ayay qabtay waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr abwaanku markuu nool yahay iyo markuu dhinto in laga warhayo wadkiisa labadaba uu mudan yahay waayahay waxaanu lahayn inagu hadaan Soomaali nahay dhaqan iyo hidaan ayaan lahayn dhaqanka iyo hidaan lahayn aad buu u qurux badnaa aad buu u qaayo weynaa haddaba Axmed Siciid Afguriye wuxuu ahaa ninka daadihinaya dhaqankaas oo ahaa Ilaahay jannada ka waraabiyo shalay ahayd markii bartanoo banaaynu joognay aynu dhagax dhigaynay maantana waa dhamaaday insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo awlaadaasina Ilaahay ha ka dhiga kuwii hana qaadee midda kalena waxa weeyaan waa mahadnaq aynu mahadnaqayna insha Allah walaalaha ku buhoobay Adal Charity Organization iyagana waxaan leenahay Rabbi miisaanka xasanaadka ugu daro Ilaahay ha uga dhigo maalinta la qatan yahay la qaawan yahay miisaanka xasanaadka ugu daro hadii Ilaahay yiraahdo maanta maalin nooga farx badan tahay ma jirto oo waxba sheegto maanta hadalkuna dirqi buu nagu yahay Ilaahay intii wax u qabatana jazaakallahum khayr aakhiri adduunba Allah nuuro iyagana Ilaahay waa maalin jimcada naxariista janna Allah ka waraabiyo war waxaan ku soo koobayaa Soomaalidu meel walba ay joogtona daawanaysa waxaan leenahay nagu dayda abwaanada fanaaniinta hawlgabka ah ee fanaaniin caruurta agoonta ee fanaaniinta abwaaniinta kaare Soomaali meel walba ay joogto ha ku dayata reer awdan anaga fanaaniintayda Xusayna halkan waxaan u imi oo isoo qaaday oo aad aan ugu muraaqooday guriga loo dhisay agoonta Allah u naxariistee uu ka tagay Abwaan Afguriye waxaan leeyahay ummadda muslimiinta meel kasta joogan ku dayda
waxaanan jecelnahay inaynu haddaynu nahay dad muxsanaada oo walaalo ah oo islaam ah inaynu taageerno kolba inta dadkeena liidata agoomaha maxaan dhahday la taageero laguna daydo udurkaas maanta iyo dadka walaalaheen muxsanaadka ah ururiyaha u kacay Axmed Inay Saciid ubadku ka tagay aqal ay degaan u abaabusheen alifleydan iyo tixdaan aan kumay wad istaahishan arrin khayriyo ayeelad wadeen ummaduna dhammaan farxad oogsato abshir baydan tiri ajarkana macbuud abaalkana ka hela nasabiyo warxamay xoolaha difkiyo kula baxda adduun ku gala akoon maalin aakhirad intifaacsata waxaan aad iyo aad ugu baahnaaqayaa ururka adal charity waxaan xaggan uga mahadnaqayaa mar labaadna dadweynihii qurbajooga ahaa waxaad qabateen wixii laynoogu sheegay quraanka iyo muxuu axaadiista waxay noo sheegeen ayaad qabateen intay daawanaysana waxaan leeyahay waar dadkeenna sidaas ha loogu naxariisto dadkeenna sidaa ha loo daba joogo ugu dambeyntiina waxaa furaha gurigaasi si rasmi loogu wareejiyay xaaskii Allah u naxariistay Abwaan Afkuriye iyadoona u mahad celisay cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismahaasi waxaan ku wareejinayaa marxuunkii xaaskiisii Afkuriye iga gudoo furxi hadiyadii waan gudoomay muftaaxiina hibo cabdi yuusuf waan ka gudoomay aad bay u salaamihiin adduunka daafiisa meel kastoo joogaan way maadsan yihiin hadiyadii qaaliga ahayd ay ugu tala galeenna waan gudoomay aad baad u maadsantihiin waana nii ducaynayaa